badbaadada bulshada waa mas'uuliyad wadareed ay hogaaminayso dawladda. bulshadeenna waxay wajahaysaa qaraxyo ku talagal iyo musiibooyin. waxaad qaadi kartaa tallaabooyinkan foojignaanta ah haddii uu qarax dhaco. 1. ha u dhowaan meesha uu ka dhacay. waxaa dhici kara inta badanna dhacday in isla meeshii uu mid kale ka dhaco. marka ka fogow oo badbaadi naftaada. 2. dhisme aad ku jirto haddii uu u dhow yahay meesha uu qaraxa haleelay, ha u dhowaan muraayadaha. sidoo kale miis hoostiisa gal ama meel bannaanaad tag si aysan kugu soo daadan waxyaabaha ku dhaawici kara. 3. sidoo kale dhismaha aad ku jirto haddii uu u dhow yahay ama yahay goobta qaraxa, ha isticmaalin wiish. isticmaal jaraanjarta caadiga ah. waxaa macquul ah in wiishka adigoo ku jira ay korontada tagto ama ay wax ka halaabaan kadibna ay waxyeello ku soo gaarto. 4. haddii aad tagto ama aad u dhowaato goobta uu qaraxa ka dhacay, ha isticmaalin sigaar, taraq iyo jinsiigar, sababtoo ah gaaska shidaal ay ka soo daadanaya baabuurta burbursan iyo kiimikada qaraxa ee weli meesha ku jirta ayaa dhalin kara qarax kale. bulsho feejigan waa bulsho ilbaxsan. fariintan waxaa idiin soo gudbiyey wasaaradda caafimaadka qaybteeda gargaarka degdegga ah.